Bismillahir Rahmanir Rahim. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka caalamiga ee CWTV oo hadaayo kala socotaan xaruntiisa dhexe magaalada Tani Caabudwaaq. Warka waxa uu diyaar anigoo nimcanashaada qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dhageysiga dacwad 10 ruux oo ku eedeysna musuqmaasuq ka socota maxkamadda gobolka Banaadir. madaxweynaha Hirshabelle oo xilka qaadis ku sameeyay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada. ciidamada Jubbaland iyo Al-Shabaab oo dagaal ku dhexmaray duleedka Afmadow. madaxweynaha Galmudug Axmed Kaari Qorqor socdaal ku marayo bariga gobolka Mudug. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba asagoo faahfaahsan. waa hagaag daawadayaal isku soo noqod wanaagsan mar kale ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland iyo Al-Shabaab oo dirir ku dhexmartay deegaanka ka tirsan Afmadow sida warbixintaasi inoogu eegaysa wariyaheena Faaduma Kaamil. wararka naga soo gaaray gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in saacadihii la soo dhaafay uu dagaal u dhaxeeyay ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo Al-Shabaab uu ka dhacay qaybo kamid ah gobolkaasi. ciidamada Jubbaland ayaa sheegay in ay weerareen goob ay isku urursanayeen dagaalyahanada Al-Shabaab taasoo ku taala deegaanka Banka Jira ee hoostaga degmada Afmadow waxaana halkaasi ka dhacay dagaal isku hor imaado u dhaxeeyay labada dhinac. ila dadka degan deegaankaasi inoo sheegeen ayaa dagaal ku socday muddo saacado ah isla markaana uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba. dhinaca kale ciidamo ka tirsan Jubbaland ayaa ka hadlay dagaalkaasi ayaa guulo sheegtay waxayna shaaciyeen in khasaare lixaad ka soo gaaray Al-Shabaab. saraakiisha ka hadashay Jubbaland ma shaacinin inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaas iyo wararka laga helayo. xaaladda ayaa saakay degan waxaase weli dhaqdhaqaaqyo iska horjeeda laga dareemayaa deegaano dhowr ah oo hoostaga gobolka Jubbada Hoose. Faaduma Kaamil Faarax, CWTV, magaalada Caabudwaaq. dad badan ayaa lagu laayaa dalka South Africa. wiil Soomaaliyeed oo cadaalad darro ka tirsanaya maxkamadda gobolkaasi ayaan idin haynaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. magacaygu waa Cabdullaahi Abshir Maxamed ku magac dheer Baakaay. wadankan waxaa soo galay 2009 bishii 12 December. markii ugu horeysay waxaa ka shaqo bilaabay location la yiraahdo Fosselaris agtiisa oo hoostaga oo la yiraahdo Wilmbeck. dib badan waa ku soo maray tuugo badan waa nagu soo weerartay wiilal badan waa nooga dhaawaceen. 2011 ka wareegsaday waxa uu markaa meesha u adkay. Bismillahir Rahmanir Rahim. magacaygu waa Cabdullaahi Abshir Maxamed ku magac dheer Baakaay. wadankan waxaa soo galay 2009 bishii 12 December. markii ugu horeysay waxaa ka shaqo bilaabay location la yiraahdo Fosselaris agtiisa oo hoostaga oo la yiraahdo Wilmbeck. dib badan waa ku soo maray tuugo badan waa nagu soo weerartay wiilal badan waa nooga dhaawaceen. 2011 ka wareegsaday waxa uu markaa meesha u adkaysan waayay waxa u guuray darbanna markaan tagay waxaa la kulma boobo badan oo dadka baalka jisin ceebka mar walba marka waxa lagu boobayo wax yariisa waxba ahayn dagaal yar lagu cunuga lagu soo diraa dagaal yar oo waxba ahayn lagu bilaabaa dagaalku markuu bilaawdana waxa loo digay dableeyahay oo waxa la baalka la gaarsiiyay la rabaa hantidaada marka la boobo dukaanka waxa dhici jirta waagi horeeto qiimo baalka sheeg dollarku xoogaa waa dhib yaray meelaha wax ka adeeganaysa wax ka soo deynsan jirnay balse hadda xoogaa waa adkaaday maxaa yeelay dukaanka markii laga boobo lacagta lagu istoogayo waa lacag u dhigmato $20,000 $30,000 kaashkeeri ku siinaayana ma jiro. marka dadka badan hadda waxa dhacday waagi hore dukaanka markii la boobo si degdeg ah loo soo camiri jiray oo alaab loogu soo celi jiray balse hadda waxa dhacday dukaanka markii la boobo inaa sahal looga kaban ama dukaankii looga guuro sida looga tago ama iska xirmaba. marka hadda wadankii waa dhibaatadiis waa soo badatay dilkiisuna saaid uu soo noqday. marka ani shakhsi ahaantayda waxa ugu dhacay inta soo Afrika joogo oo dukaamo aniga markii sheeg marka shaqaalanimo ka soo baxay waxa isku dayay inaan dukaamo wax ku darsado anigii wiilal kale oo shirkaa waa sameeyay dukaamo badan waa sameeyay. marka dukaankaygi labaad oo dhibkii ugu weyn iga soo gaaray wuxuu ahaay marka darban ka soo laabtay 2014 ka soo laabtay waxa soo degay magaalada la yiraahdo Johannesburg markaa soo degay waxa isku dayay inaa business ka soo biyo businessyada soo biyay waa ma sha Allah waa soo biyay dhibkii saddexaad ugu daray waxa ugu dhacay location ka la yiraahdo Cosmo
dukaana aniga yar saaxiibkayga furnay dukaankii maruu noo furan yahay 3 sano maasha Allah wax badan noo shaqeeyay waa nala ka boobay markii nala ka boobay waa nolo diid inaan ku soo laabano marka waxa loo dhacday anagoo dukaan ka maqan adeega markaa geeyay magaalada ka soo laabtay waxa dhacday wiil yaraa wuxuu dafay saliid markuu dafay wiilkii shaqaale wiil kamid aha wiilkii dharbaaxay markuu dharbaaxay dadka xaafadda arkayeen dukaankii ku soo yaaceen waa la boobay waana ku soo laabo weyne sidii marka ka bacdigii dukaankii wax badan community isku day inaan ku laabano marka waana kumana aan laabo waa ka tagnay waa soo tagay dukaan kale waxa ka dhisay meesha la yiraahdo Bambridge khasaaradii markii dukaankaas khasaar lacagta waxa ku qiyaasi kara lacagta iga soo naga khasaartay dukaankaas $25,000 ku qiyaasi kara markii community-ga noo diidana waa ka tagnay qisadii saddexaad oo igu xanuunka badneed oo igu soo martay wadanka South Africa dukaana waxa ka dhisay Bambridge markuu shaqeynayay 3 bilood waxa igu dhacday walaalkay ila dhashay oo imaaday 2010kii oo garabkayga midig ahay Mahad Abshir Maxamed habeenada kamid ah taariikhduna ahayd 2017kii 24 bishii saddexaad waxa dhacday habeen ayagoo 3 saac dukaanka xiro jiifo darbiga loo soo jibiyay markii darbiga loo soo jibiyay aniga lama aanan joogin waxa jooga magaalada waa soo waceen dukaanka darbigeeda la jibinahay naga soo gaaray dhahan inta wadada ku sii socday dukaanka wiilasha waa loo soo jibiyay dhalooyin waxay ku turtuureen dhalooyin wax markay ku turtuureen waxa dhacday falilah markii dukaanka inay tuugadi soo gashay wiilka ila dhashana markii xabadii koowaad ay markii dukaanka soo galeen wiilka ila dhashay Mahad Abshir Maxamed ay xabada ku dhufteen wiil kale oo la joogay iyo wiil Malaawiyaan laba ahaayeen labadii wiil oo kale waxay dhahan lacagtii sheegay lacagii u soo bixiyeen wixii dukaanka yeelay markaas way rarteen baabuur xataa way wateen wixii dukaanka yaala way qaateen dukaankii marka South Africa waxa uga niyad jabkayga koobaad wuxuu ahaay marka garabkayga midig ku waayay walaalkay daad iga weyn oo hooyaday iyo aabay ila dhaleen marka South Africa ku waayay niyad jabka koobaad oo ka niyad jabay kaas waaye marka walaalkay garabkayga ka baxay ka bacdi South Africa aniga niyaddu hadaba waa iska joogaa moogi wax niyad uma haayo balse insha Allah one of the day dukaanka marka tagay waxa dhacday dukaanka marka tagay waxa tagay booliis oo dukaankii joogay wiilkii meedo dukaankii yaalo aniga muraankay hadda ma soo koobi kara manas maalka isha meeshan kuma soo koobi kara kiisiya waxa furnay wiil waa daba kacnay nimankii dila waxay noqdeen niman wadan dariska u dhashay oo dalka wadanka Mozambique la dhahay noqdeen waa kiiskiisa u daba joogno u aakhir nimankii qaarna waa baalka isha ninna wadanka ku dhinto asoo fal kale ku jiro oo baalkii mission kala fududeeyay oo fulinayo ku dhintay maadaama kiiski markii la furay oo daba kacnay wiil nimankii ninka dileen oo anagoo daba soconnaa waxa dhacday nimankii nin kamid ah waxa dilay booliis ayagoo ku jiraan fal kale dhaca laba nimo kalena in lagu raajo markay ogaadeen wadanka waa ka carareen kiiskina meeshaas aniga isaga reebo maxaa yeelay wadankii tagay waa Mozambique maxkamadna igama furo marka meeshaas ay ninkaas kiiskiisi iyo meesha Allah u naxariistay qabrigiisana Allah u waasiciyay meeshaas walaalkay gacanteeda mid ku waayay wadanka hadda waa dukaamo ku leeyahay waa ka shaqeystaa balse shaqada ku shaqeeya ma ahan mid ku niidsanahay dhageysiga dacwadda 10 ruux oo ku eedeysnaa musuqmaasuq oo ka socota maxkamadda gobolka Banaadir sida inoogu qaadaa dhageysi wariyaheen Ifraax Sulub Axmed dhageysiga dacwad 10 ruux oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo ku eedeysan musuqmaasuq oo ka socota maxkamadda gobolka Banaadir dadkan ayaa waxa kamid ah agaasimo waaxidyo ka tirsan wasaaradda iyo agaasimaha guud oo dhawaan xabsiga laga sii daayay waxaa loo haystaa eedeymo ku saabsan lushada hantida dadweynaha gaar ahaan markii uu bilaabay cudurka coronavirus wasaaradda caafimaadka ayaa bilihii la soo dhaafay wajahaysa jahwareer ka dhashay xiritaanka shaqaalaha wasaaradda caafimaadka intii aan la gudagelin howsha maxkamadda ayaa waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir oo sheegay in ay tahay wax aan wanaagsaneyn in shaqaalaha dawladda lagu soo eedeeyo musuqmaasuq maxkamadda gobolka Banaadir maanta ay taariikhdu tahay 13 bisha 6 2020 waxay u fariisan doontaa dacwad ciqaabeed ay eedeysana ka yihiin 10 kamid ah shaqaalaha Soomaaliyeed oo xafiiska xeer ilaalinta qaranka ay ku soo eedeeyeen dacwado la xiriira musuqmaasuq iyo ku tarafal hanti dawladeed maxkamadda waxay ballan qaadaysaa in dacwaddu ay mari doonto habraacyada sharciga uu qabo lana hubin doono qof kasta waxa lagu soo eedeeyay si waafaqsan sharciga u yaalo dalka inaga oo xaqiijin doona in qof kasta uu cadaalad helo waxaan doonayaa inaan fariinteedu gaarto dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed shaqaalaha dawladda nooc walba ay leeyihiin iyo hay'ad kasta iyo ay ka shaqeeyaan waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waxay idinka doonayaan inaad si hufan ugu shaqeysaan oo aad u dhowrtaan hantida idinkugu dhiibay waxaa nasiib darro ah oo ceeb ah in shaqaalaha qaar ka mid ah oo dawladda ka tirsan lagu tuhumo ama lagu eedeeyo wax isdabamarin iyo musuqmaasuq hal la ogaado ruuxii lagu soo eedeeyo musuqmaasuq
in la horkeeni doono garsoorka inuu halkaas la horkeeno garsoor inuu halkaas ka helayo inuusan ka heli doonin halkaas hiilo baalmarsan sharciga uuna wajihi doono ciqaab sharcigu saarayo iyadoo aan looga naxariisan doonin. waxa aan farayaa dhammaan hay-adaha baarista u qaabilsan sida xeer ilaalinta iyo booliska in ay indhahooda furaan lana socdaan xafiisyada iyo dhammaan hay-adaha dalka cadaaladana ay horkeenaan qof walba oo ku eedeysan musuqmaasuq iyo wax isdabamarin. waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed in ay ku kalsoonaadaan cadaaladda isla markaana indhahoodu u noqdaan booliska soona gudbiyaan xogaha la xiriira musuqmaasuqa taasoo keeni doonto in dalkeena uu gaaro horumar iyo cadaalad. Farah Sulub Ahmed CWTV degmada Caabudwaaq. madaxweynaha Hirshabelle oo xilka qaadis ku sameeyay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada sida warbixintaasi inoogu eegay wariyahana Mawlid Galwaaq. madaxweynaha maamulka Hirshabelle mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa xilka qaadis ku sameeyay wasiirro ka tirsan golihiisa wasiirada isagoo kuwa cusubna magacaabay kadib wareegto ka soo baxday xafiiskiisa. qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in xilka qaadis lagu sameeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulkaasi mudane Geelle Isaaq iyadoo xilkaasi loo magacaabay mudane Xasan Maxamed Cilmi. sidoo kale waxaa wareegtada lagu sheegay in isla xilkaasi laga qaaday Luqmaan Xaaji Barqab oo ahaa wasiiru dawlihii wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha Hirshabelle waxaana isla xilkaasi lagu bedelay oo loo magacaabay mudane Yuusuf Sheekh Xasan Macallin. sababta xilka looga qaaday wasiiradan ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay baahi loo qabo in la dardargeliyo howlaha shaqo ee wasaaradda amniga iyo maaliyadda maamulkaasi. inkastoo warar hordhaca ay sheegayaan inay xiriir dhow la leeyihiin xukuumadda federaalka ee dalka Soomaaliya. shalay ayay ahayd wasiir ku-xigeenka amniga marka uu magaalada Beledweyne ka sheegay in uu ka tagay xilkii balse maanta ayaa xilka laga qaaday sida waraaqdan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Hirshabelle ku qoran. Mawlid Jaamac Faarax Mawlid Galwaaq warbaahinta CW magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Kaariye Qorqor oo socdaal ku maray bariga gobolka Mudug sidoo mar kale warbixintaasi inoogu eegay wariyahana Mawlid Galwaaq. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inay noo suuro gasho inaan soo eegno dhowr meelood oo loogu talagalay dakhliga iyo ururintiisa iyo maamulkiisa loogu talagalay. halkan baa ugu horeysa daartan oo ciidanka booliiska ee la shaqeeya cashuuraha ka shaqeeya loo dhisay. waxaan u maleynayaa marar horoon imi siday meeshan ahayd in laga warqabo dadka Soomaaliyeed ka warqabaan qaraxyadii meelaha ka dhici jiray baa dumiyay marka meel burbursan oo baabaasan bay ahayd. waxaan runtii aan u mahad celinaynaa dadka dhisay ee isku mashquuliyay taliyaha korjoogtaytiisa iyo ciddii noo fund garaysay ama lacagta na siisay African Development Bank oo arrintan ka shaqeeyay oo lacagta bixiyay oo nidaamka maanta aan arkayno ee xafiisyada quruxda badan leh noo dhisay wali naguma soo wareejin waan soo kormeernay waxaan filayaa inay dhammaad ku dhow yihiin. waxay markaa ka mid yihiin maanta dhowr meelood oo cashuuraha iyo maamulkooda loogu talagalay dakhli ururinta oo wasaaradda maaliyaddu xil weyn iska saartay in la dhiso oo la habeeyo oo dalkani wax ku oola loo sameeyo cid walba ka hadha oo dalka u hadha in la sameeyo. marka aad baan ugu faraxsanahay meesha dhismaha halkan ka socda dhismo si fiican u socday weeyaan. waxaa korjoogteynayay dad fara badan oo injineero Soomaaliyeed. marka maanta haddaan waxaasoo kala dhisan karno runtii tallaabooyin waaweyn baa la soo qaaday. waana ku soo noqon doonaa mar baa la furi doonaa madaxweynuhu furi doonaa haddii la yiraahdo. marka dhowr meelood baan isku arkaynaa. aad baan ugu faraxsanahay. taliya waad mahadsan tahay. injineerska halka jooga way mahadsan yihiin. gudoomiyaha dakhliga aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. waxaan siinayaa TV-ga Koonfur Galbeed Soomaaliya. tan labaad maanta ay taariikhda ay tahay 13 bishii Juun 2020 waxaan inoo qabsoomay fadhigeenii baarlamaanka gudiyada joogtada ah iyo guddoonka. sidoo kale gudiyada dhan way ku dhamaayeen maanta way soo xaadireen.
sidoo kale waxaa joogay shirka waxaa noo gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya Professor Dr. Cali Saciid Faqi labadiis gudoomiye ku xigeen sidoo kale shirka waxaa uu maanta ku saabsanaa wada shaqeynta baarlamaanka gudiyada baarlamaanka iyo golaha wasiirada inay wada shaqeeyaan si ixtiraam ay ku jirto sida loo dardargeliyo howlaha quruxda badan ee dawladda koonfur galbeed ka socdo sidoo kale dawladda koonfur galbeed waxay optionkeeda ah misaalaynteeda ah wax qabad joogto ah iyo daryeel iyo dawladnimo wax qabadkeedu wuxuu yahay halku dhiga dawladda koonfur galbeed Soomaaliya halku dhigaas oo ahaa daryeel iyo dawladnimo saas daraadeed maanta wuxuu gudigeena aad diirad u saaray in wasiirada loola shaqeeyo si qurux badan oo isla xisaabtanna ku jirta wasiirkana iyo golaha wasiirka iyo gudiga ay quseyso wasaaraddiisa inay wada shaqeeyaan si ixtiraam ah istixgelin ah ayna dardargeliyaan howlaha markaas ay quseyso sidoo kale waxaan aad diirad u saarnay si lagu horumarin lahaa koonfur galbeed dawladda koonfur galbeed Soomaaliya dhan kasta oo ay ahaato dhanka amniga in diirada la saaro caafimaadka waxbarashada biyaha quruxda iyo bilicda in la soo saaro sidoo kale waxaan ku dheeraanay in aan maanta kulankeena aad wuxuu diiradan u ahaa kulankeena koowaad u ahaa isbarashana way ku jirtay saas daraadeed waxaan oo kale aan xooga saarnay wada shaqeyn wasiirada inay la shaqeeyaan gudiga markaas ayaga ku hoolan ee loo saaray inay la shaqeeyaan marka mid kale waxaad aad ugu mahadcelinayaa mar labaad bahda TV-ga koonfur galbeed Soomaaliya oo na siiyay fursadaha qaaliga ah ee markasta u hoolan inay qabsadaan hooshooda waa hagaag daawadayaal guud ahaan sayaan ku soo gabagabeynayna warkii oo kala socoteen telefishinka caalamiga ee CWTV warka waxaan la socodsiinay anigoo macnashaada inta mid kan wixii ku kulmi doona waxaan kaga tageynaa annaga isku duuban sidaas iyo amaana Allah